فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. hadda ka hor waxaa dhacday nin boqor ah ayaa wuxuu lahaa eeyo 10 gaarayo oo uu ku ciqaabo dadka asaga u shaqeeya ama wasiiradiisa ah ama dawladdiisa kamid ah ee khiyaanada ku sameeyay. boqorkii waxaa dhacday wasiir kamid ah wasiiradiisa inuu khiyaano sameeyay. boqorkii ayaa wuxuu amray ilaaladiisa in wasiirkan lagu ciqaabo 10 ay inay cunaan ee asaga dilaan. wasiirkii ayaa aad u murkay wuxuuna ka codsaday boqorkii inuu siiyo 10 cisho oo dib loo dhigo dilkiisa. boqorkii wuu ka aqbalay. waxaa dhacday ninkii wasiirka ahay wuxuu u tagay ilaaladii eeyaha ilaali jirtay ee cunada sii jirtay ee u khidmay jirtay, wuxuuna ka codsaday inuu booskooda galo si uu ugu khidmeeyo eeyihii. 10 cisho ayuu wasiirkii eeyihii u khidmeeyay. eeyihii dhiigkii way barteen wayna jeclaadeen 10 cisho gudahood. markii 10 maalin oo qabsaday wasiirka la gaaray, boqorkii wuxuu amray in wasiirka la dilo, dilkiisana uu noqdo in ay dilaan eeyihii iyo asaga meel lagu wada xiro. eeyaha waxay ahaayeen eeyi dad cun ah. waxaa dhacday wasiirkii markii shabaqi lagu xiray eeyihiin lagu soo daayay, eeyihiisay u soo cararayeen ama u soo ordaayeen waxay hoos fadhiisteen lugihiisa iyagoo aanan gaarsiinin wax dhibaato ah. boqorka wuu yaab, dadkii oo dhan way fajaceen. maxaa dhici doona? sidee ku dhacday arrintan ayuu yiri boqorkii. wasiirkii ayaa ku jawaabay, boqorow, eeyahan 10 cisho ayaan u shaqeeyay, abaalkayga way karteen, adigana 10 sano ku shaqeynay, wanaagii aan ku galayna waa ilaawday. boqorkii aad ayuu u carooday, wuxuuna yiri ninka madaxa laga jaro.